عليكم ورحمة الله وبركاته والله qaaliga Ramadaan mubaarak meel walba adduunka joogtaan hadduu ilaahay raado waxaa ka hadli doonaa casharadeena taxana ahaan maadada si guud waxaan kaga codsanayaa dhammaan dadka daawanaya videogan oo dareeraya xiisada lecturekan lecturada ku saabsan locationka dhanka commentiga aan u reebtaan wax kasta oo la xiriira haddii ay noqon lecturada hore usoo qaadan kuwa oo dhiban waxyaaba aad u sii xiiseynaysan inaad nala sheekaysan waa idinka codsana hadduu ilaahay maanta waxaa ka hadli doonaa locationka haddii ay noqon functional problem and history technique functional problem waxaa noloshiisa caadiga problemadoo kala kulma functional ahaan shaqo ahaan location markii laga hadlayo shaqada problemka kala kulma nolosha guud wuxuu kala kulmaa sidoo kale sidee loo history technique loogu sameeyaa muhiim waa intaas amaad kaga hadli doonaa adduunyada haddaan ku bilaabo functional problemka oo qofka kala kulmaayo main functional problem waxaa ugu horeeya readingka waxyaabaha reading disability inuu noqdo waxyaabaha la aqriyo readingka aragna waxyaabaha soo galaya problem inuu kala kulmo tusaalaan slowly reading inuu noqdo qofka inuu wax si tartiib u aqriyo waxyaaba ugu badan oo problemka oo kala kulma hadduu wixii boobsiis dhaho inta badan waxay noqonaysaa in oo problem xagga kala kulmo sidoo kale need to close wax kasta oo uu sameynayo inuu usoo dhawaado distance ahaan inuu usoo dhawaado aragnow readingki waxyaaba inuu usoo dhaweeyo waxyaaba problemka inta badan kala kulmaya sidoo kale central scotoma waxyaabaha inta badan oo centerka inuu noqdo scotoma waa problem saata calaamad ahaan qofka u dareemayo centerka inuu oo noqdo tusaalahaan centralka markuu sidaa laga hadlayo sidaa markuu yahay inay waxay noqoto centerka laga hadlayo inta inay noqoto mid clear aanan ahayn waxyaaba inta inay mulaarato scotoma sawiro badan oo akulan markii laga hadlayo glaucoma aan kaga soo hadalnay sidoo kale common age macular degeneration reading problemka inta badan la xiriiro oo central reading ka qaabilsan age macular degenerationka inta badan waxyaabaha ugu badan waa intaana soo sheegnay waxyaabaha kale soo xiigi kara waxaa waaye macular degeneration oo problemaha qofka uu arkayo sidoo kale distance vision problem kaarad regularization phase waxyaabaha markii aragga fog laga hadlayo qofka araggiisa fog qofka regularization ma sameyn karo qofka ma kala saari karo wejiyada qofka soo socdo qol haduu lacala qof qol ku soo galo qolka qofka albaabka taageer xataa ma kala saari karo qofka intuu u soo dhawaado waxa si kala xataa qofka aragiisa fog uma qiyaaso marka problemada qofka kala kulma waxa kamid ah qofka kugu ibaara waxa waaye regularization phase inuu wajiyada kala aqoonsan karo sidoo kale kaarad inuu arki karin bas nambarada basaska ku qoran lambaradooda waxyaaba meelaha laga raacayo inta badan problemadaas oo qofka kala kulma mobility-ga waxaa kamid ah mapping into the objectives-ka tunnel vision-ka common in glaucoma waxaa leeyahay mapping in the objective waxyaabaha objectiyada inay mapping ay sameynayaan isbedelayaan maanta marar qaar ay soconayaan marar qaar waxyaaba inay soconayaan u muuqanayaan sidoo kale tunnel vision waxaa waaye qofka central inuu yeesho tunnel vision dhibic yar oo qofka wax ka arkaya inuu noqdo oo hareerihii kala dhan inuu mugdi u noqdo waxaa cudurkaas uga caasan waa glaucoma oo inta badan lagu arkaa glaucomada cudurka central visionka nadiif noqonayo peripheralka ayaa qofka ibarka noqonayo glare and contrast sensitivity problem inuu qofka dareemo oo baabuurta camal tusaalahaan light sensitivity inuu dareemo oo iftiinka oo qoraxda waxyaabahaas inuu sensitivity ku yeesho sidoo kale poor night vision habeenka qofka araggiisa inay dhibto waxyaabaha ugu badan oo qofka lagu arko waay sidoo kale psychological impactiga oo problemyada functionalka oo la kulmayo oo tusaalaan cabsi inuu qofka dareemo fears inuu dareemo sidoo kale loss of independent qofka inuu awood independent awoodiisa caadiga inuu qofka uu waayo oo waxyaabay uu qabanay wax walba inuu qof u adeegsado independent inuu noqdo independent way hore ah laakiin qofka problem waxaa kala kulmaa independent soo marka psychological impact ay qofka ku dhacay depression ku dhacay qofka stress uu qaada uu dhibsana qofka waxyaaba ugu badan oo qofka functional problemkiisa oo qofka soo wajahay ku jirta sida u wareysanaysa marka wareysiga qofka aad loo kala gudsiyaa dadka caadiga iyo dadka low vision-ka farqi weyn u dhaxay waxa ugu horeeya oo inta badan lagu arko waxaa waaye waxaa la rabaa inaad ka wareysatid intaan arag afarta qayb inaad qofka wareysta la rabaa si guud aragna inaad ka wareysto near vision disabilities inaad ka wareysto qofka hadday noqon small reading problem ka jira waxyaabaha aqrinaysa small printer waxyaabaha yaryar inaad aqrin kartid sidoo kale writing waxba qori kartaa inaad qofka wareysatid waxaa ugu badan needle treated inuu sameyn karo oo cirbad inuu wax ku sameyn karo ama cirbad inuu adeegsan karo qofka awood u leeyahay waa history technique qofka adeegsan sidoo kale mobile ba adeegsan kartaa
waxyaaba ugu badan qofka la rabo in la weydiiyo ayay ku jirtaa. Sidoo kale distance disability-ga qofka waxyaabaha aragtiisa fog ability buu leeyahay. qofka low vision markii history lagu sameeyo important botiska waxa ugu horeeya TV ba daawan kartaa su'aalahaas inaad weydiin kartid. sidoo kale face recognition ba samayn kartaa wajiyada qofka ma kala aqoonsan kartaa. sidoo kale road side reading waxyaabaha wadooyinka lagu soo qoro qofka ba isticmaali karaa. sidoo kale mobility-ga disability waxa ugu horeeya crossroad waxyaabaha waxyaabaha qofka wadada ma qaadi kartaa waxyaabaha wadada ma jari kartaa kaliya su'aalaha inta badan la weydiinayo. sidoo kale avoid ya ku dhigay waxa kale ku xigo waa detect steps waxyaabaha steps sida hore loo qaado la soconaa noloshiisa caadi qofka sameeyaa in uu problem kala kulmaysa inaa hore u weydiisido. sidoo kale avoid inuu ka taxadiro abstract waxyaabaha caadiga la qabanayo inuu avoid uu ku yahay qofka in adiga weydiisa laga rabo. haddii ahaan lahayd active daily life haddii problem oo ka ahaa la activitieskiisa salaad ku kii wax karanayo problem inuu qofka arko. sidoo kale body identification lacagaha qofka ma kala saari karaa wax ma kari kartaa. sidoo kale medicine daawada la isticmaalayo magacyada waxyaabaha kalaradooda ma kala sheegi kartaa waxyaabaha inta badan loo baahan yahay history tag ahaan in loo sameeyo. hadii kaga baad xilaya wixii oo su'aalo dhanka comment inoo reeb. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.